adeega sirdoonka dibadda ee dalka Ukraine waa wakaalad sirdoon oo ka tirsan dowladda Ukraine. Waxay fulisaa dhaqdhaqaaqyadeeda sirdoonka ee siyaasadda, dhaqaalaha, militariga, sayniska, macluumaadka farsamada iyo qeybaha adeega. Waxa ayna si toos ah u hoos timaadaa madaxweynaha dalka Ukraine. Dastuurka dalka Ukraine, xeerka Ukraine ee hay-adaha sirdoonka iyo xeerarka kale ee dalka ayaa ah hagaha ugu muhiimsan ee howlaha adeega sirdoonka dibadda. 27 bishii Janaayo sanadkii 1919 Jamhuuriyadda dadka Ukrainiyiintu waxa ay aasaaseen hay-addii ugu sareysay ee sirdoonka ajnabiga ee dalka Ukraine. Waxa ayna hoos imaanaysay waaxda arrimaha siyaasadda ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Ukraine. Kadib markii laga adkaaday Jamhuuriyaddii dadka Ukrainiyiinta ee UNR iyo ku daridii Ukraine ee Midowgii Soofiyeed, hay-addan waxaa loo isticmaalay si ay u soo ururiyaan macluumaadkii ku saabsanaa xaaladda guud ee Soofiyeedkii Ukraine, xulashada iyo wakiilada xagga tababarka iyo deganaanshiyaha guud ahaan waddanka. Jamhuuriyadda dadka Ukrainiyiinta ama Jamhuuriyadda Qaranka Ukraine waxa uu ahaa waddan ku yaala bariga Yurub oo jiray intii u dhaxaysay sanadihii 1917 ilaa sanadkii 1920, waxaana lagu dhawaaqay dowladdaasi kacaankii Febraayo ee Ruushka kadib. Intii lagu jiray muddadaasi, adeega gaarka ee militariga ee UNR ee ahaa dibadjooga waxa uu mararka qaarkood uu xiriir xagga sirdoonka oo dhow uu la lahaa wadamada Romania, Jabaan, Faransa iyo boqortooyada Ingiriiska. Intii u dhaxaysay sanadihii 1920 ilaa sanadkii 1930, dowladda Poland ayaa ahayd ciddii martigelisay oo wada shaqayntii ugu badnayd la lahayd hay-addan sirdoonka dibadjooga ee UNR. Hoggaanka adeega sirdoonka dibadda ee dalka Ukraine ayaa ah mid fiiro gaar ah u leh shaqada waaxda ka hortagidda dhagaraha shisheeyaha. Waxa ayna sidoo kale maanta ay ka qayb galaan howlaha la xiriira sharci dejinta, iyagoona sidoo kale sameeya ka hortagidda argagixisada, howlaha dembiyada abaabulan ee caalamka, tahriibinta muqaadaraadka sharci darrada ah, ka ganacsiga rasaasta sharci darrada ah, tiknoolajiyadda iyo wax soo saarka. Sidoo kale hay-addan ayaa howlgallo waxa ay ka sameeyeen gudaha wadamada Georgia, Ciraaq, Syria, Lubnaan, Libiya iyo kuwo kale oo fara badan, halkaas oo howlgallo ay u tageen. Sirdoonkan ayaa dagaal basaasnimo oo xoog badan la galay dowlado waaweyn oo uu ku jiro dowladda Ruushka iyo wadamada reer galbeedka qaar ka mid ah, waxaana howlgalladii ay ka qayb galeen ay ahaayeen kuwa guulaystay. Taasina waa sababta keentay in sirdoonka Ruushka weli uu ku howlan yahay in uu kala furfuro sirdoonkan, taas oo weli u suurtageli la. Sirdoonkan waxa uu si gaar ah uga shaqeeyaa fulinta tallaabooyinka gaarka ah ee siyaasadda gobolka Ukraine, arrimaha dhaqaalaha, militariga, farsamada, deegaanka, qeybaha macluumaadka iyo sidoo kale in ay difaacaan qaranka, kobciyaan horumarada dhaqaalaha iyo sayniska ee waddankaasi. Sidoo kale waxa ay ilaaliyaan howlgallada dadka Ukrainiyiintu ay u joogaan dalka dibaddiisa. Waxa ay bixiyaan ammaanka shaqaalaha iyo xubnaha qoysaskooda ee dalka martida loo yahay. Sidoo kale waxa ay saraakiishu ay siiyaan warbixino sirdoon oo maalinle ah. Waxa ay ka qayb galaan howlgallada caalamiga ah ee wax ka qabashada arrimaha mudnaanta sare u leh dowladda, sida dembiyada abaabulan, argagixisada, ka ganacsiga daroogada, ka ganacsiga sharci darrada ee hubka iyo tiknoolajiyadda iyo socdaalka sharci darrada ah. Sidoo kale dowladdu ayay siiyaan tallaabooyin ka hortagid ah. Waxa ayna qaranka ay ka difaacaan dhagaraha sirdoonka ee dibadda. Waxa ay muwaadiniintu ay siiyaan xogo joogto ah, iyagoona sidoo kale ka feejigan in ay ku milmaan siyaasadda gudaha ee dalka Ukraine. Dowladda Ruushka markii ay ku qaaday duulaanka dalka Ukraine waxaa barbar socday dagaal xoogan oo dhex marayay hay-adaha sirdoonka ee dalalka Ukraine iyo Ruushka, taas oo keentay in sirdoonka dalka Ukraine uu noqdo mid ku gacan sareeya dagaalka. Inkasta oo sirdoonka dalka Ruushka uu yahay mid xoogan, haddana ma filaynin in quwad iyo farsamo intaas la eg uu kala horyimaado sirdoonka dalka Ukraine.
hay-adaha sirdoonka ee dalalka reer galbeedka iyo Mareykanka ayaa si weyn u qalabeeyay hay-adan sirdoonka dibadda ee dalka Ukraine, taas oo keentay in ay u bacbacdhigaan sirdoonka dalka Ruushka oo ah mid ka mid ah kuwa ugu awooda badan caalamka. sirdoonka dalka Ukraine ayaa fashiliyay mid ka mid ah weeraradii ugu weynaa ee sirdoonka dalka Ruushka uu soo qaado, kaas oo ahaa in la dilo madaxweynaha hadda talada wadankaasi haya. sidoo kale waxa ay fashiliyeen sirdoonka dalka Ruushka dhagaro badan oo uu doonayay in uu ka sameeyo magaalada Kiev, oo ay ka mid ahayd in la qarxiyo goobo muhiim ah, warshado, dekado iyo goobaha laga dhaliyo korontada ee nuclearka. Hoggaanka adeega sirdoonka dibadda ee dalka Ukraine maanta waxa uu wajahayaa mid ka mid ah dagaaladii ugu qaraaraa ee soo mara kadib markii sirdoonka dalka Ruushka ay gudaha u soo galeen dalka Ukraine, gaar ahaan magaalada Kiev ee caasimadda waddankaasi. waxaana dagaalka sirdoonka hadda uu xoogiisa uu ka socdaa gudaha iyo hareeraha magaalada Kiev ee caasimadda waddanka Ukraine, waxaana sirdoonka dalka Ruushka la sheegay in uu isku dayay inuu dilo madaxweynaha dalka Ukraine Zelensky. madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ka badbaaday ugu yaraan 3 isku day dil tan iyo markii uu bilowday duulaanka Ruushku uu ku qaaday waddanka Ukraine. Zelensky ayaa awooday in uu ka badbaado dhagarahaasi kadib markii ay tallaabooyin ay qaadeen hay-adda sirdoonka ee dalka Ukraine. sida laga soo xigtay wargeyska The Washington Post ee ka soo baxa dalka Mareykanka, adeega amniga federaalka ee dalka Ruushka ee loo soo gaabiyo FSB ayaa ku wargeliyay dowladda Ukraine in ay jiraan cutubyo loo soo diray inay dilaan madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky. ciidamadaasi sida gaarka ah u tababarnaa ayaa tagay magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine, halkaas oo ay doonayeen in ay ku dilaan madaxweynaha dalka Ukraine iyagoona si dhow ula shaqaynayay koox kale oo ka tirsan sirdoonka dalka Ruushka. laakiin waxaa lagu dilay duleedka magaalada Kiev kadib markii ay fashiliyeen hay-adda sirdoonka dalka Ukraine. hay-addan sirdoonka Ukraine ayaa howlo waaweyn ka qabatay gudaha dalka Ukraine tan iyo markii uu bilowday dagaalka xooga badan ee dowladda Ruushku ay ku soo qaaday waddankaasi Ukraine. hay-addan sirdoonka dalka Ukraine ayaa wajahaysa dagaal sirdoonkii ugu xooga badnaa. dagaalkan xagga sirdoonka ee ka socda dalka Ukraine ayaan la ogeyn kooxda ku guuleysan doonta, ma waxaa guuleysan doona sirdoonka dalka Ruushka mise kan dalka Ukraine.